السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خياري kusoo dhawaada koorsada vocabulary-ga muujinka kalabaad casharkiisa saddexaad. Haddii alla idmo casharkan markuu dhammaado ardayga waxaa laga doonayaa inuu awood u yeesho inuu kala saaro formal iyo informal words, sidoo kale inuu aqoonsado xilliga ay tahay inuu isticmaalo iyo xilliga ay tahay inuusan isticmaalin. waxaan insha Allah soo qaadan doonaa common mistakes inta badan ay dadku sameeyaan. Sidoo kale formal vocabulary-ga IELTS tasks-ka inaan ku apply karno iyadana examples aan soo qaadano. Sidoo kale inaad iska ilaalisid informal tone in academic writing. Marka horeyna waan uga hadalnay farqiga u dhexeeya casharkeena hore formalka iyo informalka. Si guud waxa weeyaan formalka waxaa loo isticmaalaa academically, jaamacadaha iyo institutionska ayaa isticmaala. Sidoo kale ardayda markay qorayaan essayada ayay isticmaalaan, iyo professional contexts shaqada dadka markay maaragtay u report gareynayaan dadka ka sarreeya oo kale ayay isticmaalaan. Informalka markay tahay waxaa loo isticmaalaa everyday conversationka ama wada hadallada maalinlaha ah oo tusaale ahaan aad la yeelanaysid friends dadka asxaabta tihiin, iyo casual talk. Casual talk waa wada hadal sheekaysiga caadiga ah markaad qof aad asxaab tihiin wada hadlaysaan ayaa waxaa la isticmaalaa informal ayaa la isticmaalaa. Haddii aan tusaalayaal soo qaadano, tusaale ahaan informalku waa kiddies, waa ciyaal. Formal markaad rabtidana isla ereyga u tiraahdidna waa children. Informal get, formalkeeda wuxuu noqonayaa obtain. Help waa informal, assistina waa formal. Markaan u nimaadno IELTS-ka informal, lots of people think school is good. Dad badan ayaa u malaynaya inuu maaragtay iskuulku fiican yahay. Marka laga dhigo formal waxay noqonaysaa many individuals, shakhsiyaad badan believe waxay aaminsan yihiin that education plays a vital role in development, in waxbarashadu ay door muhiima ka ciyaarto horumarka. Haddii aan tusaalayaal soo qaadano, formal is not always necessary. Inta badan formalku ma aha mid muhiim ah marka la joogo IELTS speaking-ka conversationka caadiga ah. Waxa weeye clear and precise baa laga rabaa, laakiin waad isticmaali kartaa formal waa markaad joogto speaking-ka, writing-ka ma haya. Tusaale hadda waxa weeye too formal in my perspective the metropolis in which I reside. waxa weeye qofkan waa too formal. Kan neutralka waa I think my city is developing quickly with many buildings. magaaladaydu waxay u horumaraysaa si degdeg ah iyadoo ay ku yaalaan dhismayaal cusub oo badan. Contextiga hadda tusaale ahaan oo kale informalka wuxuu noqonayaa the boss is mad, shirkadda booskeeda ama qofka ugu sarreeya waxa weeyaan nin maaragtay aan caadi ahayn. Formal, the employer was dissatisfied with the results. Shaqaaleyaha waxa uusan ku qanacsanayn ama waxa qanaacadiisii hoos u dhigay natiijooyinka soo baxay. Okay, halkaan markaan joogno waa meeshaan rabo inaan maaragtay casharkan aan xooga ku saarno maadaama qaybahaas oo dhan horey aan u sharaxnay. Common mistakes baa jira inta badan dadku markay isticmaalayaan wordska formalka iyo kuwan informalka ay sameeyaan ama waxyaaba ay ka aaminsan yihiin. Hadda casharkan oo kale linkigiisa waxaan idin dhigayaa qaybta further resources ka helaysaa. Wuxuu ka hadlayaa formalka iyo informalka markaad IELTS writing-ka joogtid. halkaan marka wuxuu uga hadlayaa 9 khalad
oo inta badan dadku sameeyaan markay isticmaalayaan formalka iyo informalka oo 9 common mistakes waaye. There are a number of common mistakes in formal versus informal English. Run through the following checklist and apply it to your own writing. Okay. Kan kuwaad waxa weeyaan avoid contractions. Avoid contractions. Contractions waxa weeye komada yarta ah. Tusaale ahaan ereygii inaad tusaale ahaan I will baahid Eileen ka dhigtid. She is baahid she's inaad dhahdid. He is his. We are we're. Inaad ka dhigtid inaad samaysid maxaa la yiraahdaa ereygii contraction inaad ku samaysid. Tusaale ahaan sida halkan oo kale they are oo aadan they are wada dhihin aadan kala qaadin maxaa la yiraahdaa pronounkii iyo auxiliary verbkii. Halkan waxa uu yiri as a rule contractions should be avoided in formal English writing. Contractionska waa in la iska ilaaliyo marka formal English writing marka caadi formal marka wax loo qorayo. Halkan maxaa ka baxay haddii informal wax loo qorayo ama asxaabtaada message u diraysid you can use it. Just waa formal English writing. They are fine to use when speaking in academic or professional environments. Waa caadi baa la yiri inaad isticmaashid laakiin waa goorma speaking hadal baa markaana jooga marka la hadlayo xataa haddii aad la hadlaysid dadka maaragtay senior management teamka oo kaa sarreeya oo kale haddaad la hadlaysid waad isticmaali kartaa informal laakiin waa goorma waa casual casual contexts waa ka hadli doonaa oo macnaha kulamada caadiga oo laakiin de aan laga hadlayn si professional aan loo wada hadlayn professional environment. But when it comes to writing laakiin marka la joogo writingka qoraalada marka la qorayo essayada reportyada emailada presentationska si professional marka loo qorayo waxa la doorbidaa in la isticmaalo expanded form. Expanded form kuna wax kale maaha waa in la isticmaalo formal English. However, you can use contractions if they are part of a direct quote or a common idiom like it is no brainer. Waxa weeyaan waxa la yiri si kastaba ha ahaatee waxay isticmaali kartaa contractionska haddii ay qayb ka yihiin direct quote. Direct macnaha waxa weeyaan quote-ku waa columnskii waa hadal qof yiri. Tusaale ahaan haddaa qoraal qoraysid professional laakiin hadalka qof yiri sida loo publish gareeyay u qoran yahay informal طبعا de quote-ka ma bedeli kartid adigu ma aan qoran qofka yiri haddii uu informal u yiri informalka soo qaadanaysaa si loogu judge gareeyo macnaha si markaad saan de waxaan adu ma lihid moogta waad xigeynaysaa tusaale in-text citation iyo reference waa u samaynaysaa waxaadna u soo qaadanaysaa sidiisa direct quote baa soo qaadanaysaa ama common idiom tusaale ahaan idiom expressionska ama hadallada inta badan dadban iyagana haddii qaabka uu ku jira slang ama maaragtay yihiin informal sidooda u soo qaadanaysaa haddii labadan tusaale aan soo qaadano in the following section of the presentation qof baa hadlaya wuxuu yiri I'll explain the result of the experiment waxaan sharaxi doonaa natiijada experimentiga ama tijaabada natiijadii ka soo baxday. Okay, qofka formalkan wuxuu yiri in the following section of the presentation I will explain halkan wuxuu ka duwan contraction the result of the experiment natiijada ka soo baxday maxaa la yiraahdaa tijaabada. Okay, marka haddii tusaalaan qofkan uu jeedinayo presentation waxa inta badan oo ayna tahay professional context u jeedinayo dad background kala duwan oo si professional la isugu yimi oo ay joogaan senior staff management iyo dadkii maaragtay kulli ay joogaan uu isticmaali karaa formalka ayaa lagu taliyaa inuu isticmaalo
marka si guud contractionska marka la joogo speakingka markaad la hadlaysid booskaaga markaad la hadlaysid nomato waa isticmaali kartaa laakiin haddii si professional aad wax u qoraysid ama report ama presentation ama email waa inaad isticmaashid formal kaasi waa common mistake inta badan dadku ay ka aaminsan yihiin oo waxay aaminsan yihiin dadku inta badan common mistake waxay u tahay dad baa waxay aaminsan yihiin informal ama contractionisku horta sideedaba contractions waa informal haddii contractionska loo isticmaalo context professional ah inay khalad tahay laakiin sidaas maaha speakingka waa u isticmaali kartaa xaaladaha caadiga ah waa u isticmaali kartaa laakiin qoraalada ratingka marka la joogo contractions waa inaad iska ilaalisid waxaan rajeynaya inaad fahanteen qodobka xiga wuxuu yahay don't use slang in a business or academic context inta badan waxa weye slang waxa weeyaan waa hadallo loo yiri si informal ah marka hadalladaas waxaa lagula talinayaa inaan loo isticmaalin business context ama academically marka maaragtay xaalada academically la joogo inaan la isticmaalin it's never appropriate marna sax maaha to kuma haboono to use slang in loo isticmaalo informal contexts like work or university marka shaqada joogtada ama jaamacadda joogta try to find more neutral specific vocabulary to express yourself hadda slang waxaa ka mid ah ereygan oo ah bonkers ereygaas ayaa ka mid ah hadda tusaalahaan slang marka waxa weeyaan inaad maaragtay waa absolutely bonkers waa si maaragtay silly ah ama qaab maaragtay in a crazy way inaad maaragtay wixii meeting inuu dhaco macnaha very disordered oo aan nidaamsanayn tusaalahaan qaabka formalka marka ay tahay in loo isticmaalo oo la isaga ilaaliyo slangu waxa weeyaan the meeting was very poorly organized kulanku wuxuu ahaa mid si liidata loo soo organize gareeyey mistake saddexaad oo ay tahay in la iska ilaaliyo waxa weeyaan waa avoid casual greeting via email markaad emailada diraysid inaad iska ilaalisid casual greeting waxaa dhaca salaanta caadiga ah oo sida informalka la isugu salaamo tusaale see tahay oo kale Soomaali noqonaysaa email hadda aad u qorayo af Soomaali ku qorayo hadda ku bilowdo see tahay macnaheedu waxay tahay waa casual greeting ayaa isticmaashay waana mistake weeyaan waa common mistake like contractions casual greetings are generally acceptable informal marka la joogo informalka waa caadi waa isticmaali kartaa in a person conversation markaad qofka isla joogtaan xaaladii doonto ha ahaato qofka waa isla joogtaan waa isticmaali kartaa there is nothing wrong with meeting your boss at the cafe machine and saying hi Karen how is your morning okay macnaha haddii tusaale ahaan wuxuu leeyahay wax ka khaldan ma jiraan haddii qofkii booska ku ahaa aad kula kulantid meesha kafeega oo kale kadibna aad ku tiraahdid hi subax wanaagsan oo kale inaad ku tiraahdid iska caadi however when it comes to the written word laakiin markaa qoraalka qoraysid it's important to be formal waxaa lagula taliyaa inaad noqotid si formal ah when you start emails make sure you are using appropriate greeting emailka markaad diraysid waxaad hubisaa inaad isticmaasho appropriate greeting salaan ku habboon tusaalahaan hadda informalka kan maaragtay aysan ahayn inaad isticmaashid waa highlies I need help with a project waxay tahay inaad isticmaashid formal tusaalahaan dear Ms. Smith I am writing to ask for help with a project marka waa aragtaa farqiga u dhexeeya this one ayaad lagula talinayaa inaad isticmaashid waa this one okay top tip different companies have different cultures some workplaces are much less formal than others if you are unsure how to write follow the example of others in your office okay waxaa la yidhi kambaniyadu waxay leeyihiin dhaqan kala duwan macnaha marka la joogo hierarchyalka
company waxaa jira iska caadi ay tahay inaad formal informal inaad qoraal qortid iyo companiye ay maaragtay aysan ku jirin inaad isticmaasho oo sida commonka laakiin waxa weeya formal in loo isticmaalo qoraalka laakiin waxa halkan lagula maaragtay lagu wacyigelinayaa ama lagu ogeysiinayaa different cultureska dhaqamadu inay kala duwanaan karaan markastana dhaqanka companygaaga waa inaad dabagashito soo ogaatid don't use non-standard abbreviations abbreviations waa soo gaabinta ha isticmaalin marka qoraalada la qorayo oo IELTS-ka ratingka la joogo ha isticmaalin standard abbreviations non-standard abbreviationska aan standardka ahayn tusaale hadda kuwan waxaa ka mid a kan oo kale BRB oo kale oo macnaheedu yahay be right back OFC oo ah of course DMING oo ah direct message soo ma aragtid marka inaad iska ilaalisid baa laga raba waxyaabahaas oo dhan informal maxaa weeye ID key what next is service maxaa weeye I don't know buu intaan soo gaabiyey waana qoraale ugu what next steps will be on this project formal wuxuu noqonayaa I don't know what the next steps will be on this project okay marka kaana waa non standard abbreviations waa inaad iska ilaalisid markaa qoraalada direysid sidoo kale don't be too direct qodobkan waa qodob muhiim ah markaad qoraalka u qoreysid ama email aad qoreysid ama any letter aad qoreysid too direct ha noqon halkan wuxuu leeyahay saa ujeedid English speakers often make requests in an indirect way especially compared to some other languages okay macnaha luqadaha marka la isbarbar dhigayo Englishka inta badan codsiyada waxa loo gudbiyaa si indirect ah macnaha qofka kuma oran kartid waxa ii keen si toos ah uma oran kartid tusaalahaan hadda qof waxaa rabtaa inaad tiraahdid waxaa ii soo dirtaa reportigii financial reportigii bishii ugu dambeysay haddaad dhahdid send me the financial report of the last month waa direct waa inaad ku tiraahdid it will be appreciated if you send me the financial report of the last month macnaha si toosa hadalkii ha u oran oo amar ha siin amarkaas weeye waxaa halkan la leeyahay too direct ha noqon okay framing requests as questions and using please and thank you sound more professional inaad isticmaashid ereyada sida please thank you ayaa waxay tahay qaabka professionalka politeka akhlaaqduna ay ku dhisan tahay su'aal hadda qofka informalka wuxuu yidhi give me the documents by tomorrow waxa weeye berrito ii keen documentska ama documentska isii berrito ugu damayn kanna muxuu yidhi could you please send me the documents by tomorrow at the latest okay labaduba isku codsi bay direen laakiin codsigan baa more professional ah kadibna muxuu raacaya thank you marka waa too direct inaan noqotid iska ilaali waa common mistake inta badan dadku sameeyaan oo ah kan shanaad kan lixaad wuxuu noqonayaa beware of casual phrasal verbs iska ilaali casual phrasal verbska ama ka digtoonow casual phrasal verbska phrasal verbsku inta badan waa verb iyo prepositions raacay marka kuwa casualka ah tusaale hadda halkan waxaa ka mid ah casual phrasal verbska figure out oo kale oo faham halkaa ka oran lahayd understand and lahayd figure out call off halkaa ka oran lahayd cancel are too casual for formal written English instead try to use verbs that clearly express what action has been taken the organization for example ninkan waxay the organization will check out this issue next week qofka formalkana muxuu yidhi the company will conduct a review of this issue next week conduct ayuu qofkan isticmaalay qofka kana check out waa casual phrasal verb
isticmaalin marka la joogo contextiga qoraalka IELTS ratingka. Number 7 waxa weeye avoid fake nouns or expressions. Iska ilaali ereyada fake nounska loo yaqaan. Tusaale waxaa ka mid ah hadda ereygan guy, stove, an expression is like sort of, kind of thing, that kind of thing. They are commonly informal. But when it comes to formal English, it's important to avoid language that's casual and unclear. Iska ilaali inaad isticmaashid luqadda caadiga ah isla markaasna clearka aan ahayn oo aan caddayn. Okay, make sure you are using the words that communicate your meaning clearly. Can you send me that thing we talked about a while ago? Ma ii soo diri kartaa wixii aynu ka wada hadalnay cabaar ka hor? Wixii aynu ka wada hadalnay ma cadda, wax clear ama aha. Ninkaana muxuu yidhi qaybta formalka? Could you please send me the form? This is more specific, clear. Okay, so formal. Wuxuu yidhi the form one mentioned last week. Sorry, form I mentioned last week. So marka farqigaasaa u dhexeeya waxaa lagula talinayaa inaad isticmaashid formalka oo aad iska ilaalisid waxa loo yaqaano expressionska ama fake nouns. Number 8 waxa weeyaan mistake inay tahay inaad iska ilaalisid waxa weeyaan waa don't be inaad noqotid overly formal and casual conversation. Si xad dhaaf ah inaad formal u noqotid marka la wada sheekeysanayo. Macnaha waxa weeyaan si xad dhaaf ah inaad formal u ahaato. Tusaale ahaan dad baa wada hadlaysaan, dadkaa wada hadlaysaan waa dad aad istaqaanaan, shaaxa wada cabtaan, isku meel fadhiisataan, xaalado kasta aad ka sheekaysataan. dadkaas oo kale markaad la hadlaysid haddaa isticmaashid luqad xad dhaaf oo formal ah waxaa laga yaabaa inaysan dareemin friendly ama si maaragtay saaxiibtinimo leh inaad ula hadlaysid oo de wax kasta markaa lagu sheegi maayo haddaadan noqon too formal lama rabo laakiin haddii aadan ugu yaraan aadan isticmaalin noocun oo informal ah maadaama la joogo wada hadal caadi ah casual conversation halkaan lama joogo qoraal waxaa la joogaa casual conversation iska ilaali marka qoraalka la joogo yes iska ilaali laakiin casual conversation marka caadi u sheekaysanaysaan haddaad doontaan shaqada ka sheekaysta laakiin marka caadi u sheekaysanaysaan informal xad dhaaf ah noqon formal xad dhaaf ah noqon make sure to simplify your language hubi inaad fududaysid luqadaada in casual contexts xaalada caadiga you might give people the impression that you are unfriendly okay or distance dadkaas inaad ka fogtahay oo kale ayaad muujinaysaa labadan example ayaan soo qaadanay would you be so kind as to accompany me to post office and assist me in sending this parcel markaan hadda wuxuu yidhi ma ahaanaysaa qof soo kayn ah qof naxariis badan inaad ii raacdid xafiiska boostada si aan kadibna aad iga caawisid inaan diro buqshadan intaasoo dhiba wuxuu u marayaa inuu yidhaahdo inakeen kaalaan israacno ya qofkaana muxuu yidhi would you come with me to post office to help me send this parcel please ma ii iman kartaa si aan maaragtay u geeyo boostada office-ka aan u diro warqadan marka qofkan wuxuu isticmaalay sida caadiga formal english buu isticmaalay qofkaana wuxuu isticmaalay informal laakiin overly ah ya oo waana casual conversation baana la joogaa oo too formal ayuu isticmaalay halkan waxa weeyaan tusaalahan haddaad tusaalahan soo qaadano qofkan wuxuu leeyahay would you be so kind to accompany me to the post office and assist me in sending this parcel ma iga caawin kartaa inaan warqadan diro
marka qofkan waa informal ayuu isticmaalay sida caadiga conversationka caadiga ayuu isticmaalay qofkaana formal buu isticmaalay English wuxuu dhihi will you come with me to the post office to help me send this parcel marka inta badan qofkan wuxuu isticmaalay overly formal ayuu isticmaalay inta badan maadaama casual conversation la joogo kan ayaa maaragtay ay tahay inaad maaragtay isticmaashid waxa weeye number 9 waa avoid over articulated inaad iska ilaalisid long responseska ama xad dhaafka maxaa la yiraahdaa si xad dhaafa inaad isticmaashid your tone when writing WhatsApp message to your friend should be different from writing an email to your supervisor email markaa supervisorkaaga u dirayso ama iyo markaa qoraal u dirayso qofka asxaabtiin waa inay kala duwanaan qofka asxaabtiin waa inaad u dirtid form informal message caadi oo the casual conversation kiina qofka supervisorkana waa inaad u dirtid formal marka sagaalkaas mistake ay tahay inaad maaragtay ogsoonaatid tusaale qofkan wuxuu yiri sorry for the late reply will respond soon when I apologize for the delay in my reply I will get back to you promptly kan oo kale hadda waxa u diraysaa qofka maaragtay supervisorka kan oo kalena waxa u diraysaa saaxiibka waa inay ku kala duwanaadaan casual conversationka iyo professional contextiga marka la joogo waa inay ku kala duwanaadaan articlekan marka waxaad ka helaysaa qaybta further resourceska waana British Council qaybta IELTS-ka haddii aan sii wadno using formal words in speaking sounds unnatural haddaa isticmaashid mistakeska hadda la sameeyo waxaa ka mid ah speakingka marka la joogo formal words inaa isticmaashid waxay u muuqanaysaa unnatural macnaha inaadan si maaragtay rabani ah luqadii aadan ugu hadlayn ama si maaragtay aad ugu hadlayso unnatural bay muujinaysaa laakiin marka qoraalka la joogo informalkana si lamid ah qoraalka marka la joogo wuxuu hoos u dhigi karaa IELTS scorekaaga marka waxaan soo duuduubno haddaan soo duuduubno macnaha waxa weeyaan speakingka marka la joogo informal waa isticmaali kartaa iyo formal labadaba ratingka marka la joogo marna waxa weeye lagulama talinayo inaad isticmaashid informal ratingka marka la joogo qoraalada professionalka ah rating oo dhan qoraalada professionalka ah laga hadlayaa iyo IELTS rating waa IELTS rating totally isaga wax isticmaashaa formal sidoo kale qoraalada caadiga emailada warqadaha maxaa la yiraahdaa presentationska iyagana waxay isticmaalaysaa formal informal waxaa isticmaali kartaa qoraal haddii lacala ay dhacdo casual conversationska dadka caadiga ah markaa WhatsApp-ka wada hadlaysaan ayaad u isticmaali kartaa informal speakingku isagana informal ayaa maaragtay inta badan la yiraahdaa waa natural inaad isticmaashid waxaan rajeynayaa inaad fahantay formal writing informal everyday speakingka caadiga ah markaa dadka la sheekaysanayso laakiin everyday speakingka ah waxaa la isticmaalaa informal IELTS ratingka inta badan isagu always waa formal waa aragtaa speakingka marka la joogo isagana waa inaa informal isticmaashid speakingka caadiga IELTS-ka markaa joogtid formal ayaa ugula talinayaa inaa isticmaashid natural not too formal sorry macnaha speakingka markaad joogto IELTS-ka waa inaad natural isticmaashid too formal aadan isticmaalin informal si aadan isticmaalin laakiin si natural ah inaad ahaatid the middle saasaa laga wadaa marka aad ba umahadsan tihiin asalaamu calaykum casharkan marka waxaan kula talinayaa markaad daawatid oo kale waxaad ka shaqayn kartaa qaybta further resourceska qaybahan hadda aan ka hadlaynay oo dhan ayaad ka helaysaa sidoo kale maadaama uu yahay casharkii u dambeeyey modulka labaad waxaan ku siinayaa articlekan isagana oo kaa caawinaya inaad vocabulary-gaaga ballaarisid adigoo listiya dhaadheer aan isticmaalayn marka qoraalkaan akhri haddii xataa loo baahdo inaan muuqaal kasoo sameyno waa diyaar keliya codsigaa noo soo gudbi marka aadaa umahadsan tihiin casharkana maanta intaas ku egyahay waxaan kula talinayaa qaybta kuwiiska inaad ka shaqaysid
other resource-kan inaad tagtid ood ka helaysid article aan hadda aan maaragtay tusaalayaasha u qaadanaa sharaxnay oo dhan. Asalaamu calaykum.